السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنة الكيني ماما شرف ولا هيك قالي إيه ميل كستو dunida daafeeda ka joogtiin waa idin salaamay walaalahayga qaaliga ah waxaan maanta idin hayaa barnaamijkan idin hayaa waxay tahay in labada waalid oo la xushmeeyo gabadha iyo wiilka ay dhaleen aniga hadii aan labadeeda waalid xushmeenayo xushmad iyo wanaag u hayo waa inaan ninkeyga aabahiis iyo hooyadiisna aan xushmad u hayaa sababtoo ah hadii aan waalidka la xushmeenin meeshaas waxaa ka imaanayso dhibaato iyo arrimo aad u foolxun awlaadoo ka halaawdo ayagana sidoo kale tacaasi waalidiin ka noqdaan marka sidii ku dhacdo kale gabar Soomaaliyeed qisadan ku dhacday gabadhaas oo la soo guursaday ninkii markuu soo guursaday gurigii reerka aabihiis iyo hooyadiis ayuu keenay gabadhii markuu keenay gabadhii waxay sameysay markasto waxay aflagaadeynaysaa wiilkii aabihiis iyo hooyadiis bay caynaysaa mar walba saas baa tahay bahal adiga bahal camal doofaar baa tahay camal naga tag doofaar iyo doofaar ku dhalay naga tag saa mar walba ay leedahay wiilkii aabihiis hooyadiis bay gaaraysaa aflagaadeynaysaa gabadhii uur ay yeelatay uur hadday yeelatay uurkii kadib way dhashay markii ay dhashay maxay dhashay laba cunug oo mataano ah labada cunug oo mataanaha midna waa cunug caadi oo fiican midna qaarka dambe ayuu wuxuu ka yahay bahal qaarkan horena wuxuu ka yahay bil aadan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa mucjisada kamid ah mucjisayaasha ilaahay marka hadii aad aflagaado iyo qof waayeel ah oo waalidka kale aad u geysatid waxa waaye adigu waad arkaysaa dhibaatada meeshay ka soo gasho dhinacay ka soo gasho waa arkaysaa marka waxa fiican walaalahayga qaaliga ah in la xushmeeyo labada waalid waa waalidkaaga kaleeto aabbaha kale waaye hooyada kale waaye islaanta wiilka dhashan marka walaalahayga qaaliga waxaan iskugu talinayaa gabadhii taariikhda ku dhacday dhibkaasna waa waxa ay waalidka aflagaadada ay u geysatay marka waxaan isku codsanayaa walaalahayga qaaliga in aan la aflagaadeyn waalidka oo la xushmeeyo sida aad waalidkii ku dhalo oo kale aad xushmeen lahayd aad u xushmeysiin inaan wada xushmeeno ayaa waajiba waalidiinta oo odagayga inaan ka dambeeyo sida waalidkayga kale aan xushmeeyo ma ahan inaan ku horboodo walaalahayga qaaliga ah marka waa mahadsantihiin daawashada ay daawateen haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh ii share garay like-na ii saar comment-na ka bixi barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu